gabadha hooyadeed baan ahay gabadha weyn gabadha maxay guri ka baxda 6 saac iyo 50 daqiiqo waana gabar la soo wacay ma ahan gabar ayada wacatay gaari xilliga ma wacan karta awood uma lahan ma fahamtay waxaan aaminsanahay cidii hooyadeed qaadatay wararteed qaadatay markay ka soo baaran degtay waxa la waxay ku soo bin lahayd maadaama ay xiriirayeen gabadha hooyadeed ay la xiriireysay ay waceysay in ayadan dib loogu soo noqdo markay gabadha la afduubo oo wixii laga sameeysan kara laga sameystay in gabadhiina dib loogu soo noqday oo sidaasna ayagana haddana taleefankii ay gacanta ku hayeen gabadhi lagu soo maxaa loo dhahay oo la yiri meesha imaam markay irid imaatana gabadha saas lagu qaato isla gaariga hawarta qaatay kadibna ay gabdhihii yaridaa ay u imaadeen laakiin gabar yar 7 saac mal inay gaari dalbato ay meel aado awood uma lahan ma fahamtay muuqaalkan dabalay CCTV-ga gabdhaha gaariga intay arkaan way soo laabaan way baqayaan gabdhaha cabsa ku jirta gaari aad dalbatana kama baqaysid ee gaari lagu keenay marka dambe ugu dambeyn ninka wuxuu ugu qanciyay ninka aan wacay aan saak u tagay guriga ku dagay guriga gabdhaha hore ay joogaan ku dagay ninka wuxuu ugu qanciyay wuxuu yiri gabdhaha gaariga marka hore way ka baqay way ka soo noqdeen waa loo yeeray ayagoo la iska hubiya gaarigan ma muxuu yahay baa hor loogu jiitay gabdhaha af loogu riday walow mid yar waa ma ay hadli karin mid weynad xoog loogu riday af gambiga gaariga loogu riday oo macnaha waa la jiiday gabadha xoog baa lagu galiyay gaaris waxa cad in ama hawarartii afduban ay ku jirto iyo in hawarartii already la soo dhameeyay oo kadib gabdhihii xiriirka ay wacayeen gabadha ran ay waceystaan yar waa yarta wax ma wici kartee ay maxay ahaato ii sheeg ayadii lagu soo doonay oo la yiri maadaama hawarta ka baaran dagteen bal gabadhan soo wactameysana ayadana ku daramay gabdhihii hataa wayna soo waceen habeenkii telefoonada anaga way naga dansanaa xilli dambe ay wactamayeen ilaa 10 saac gabadha yarta way soo wactameysay telefoonada lagama qabanin oo anaga ilaahay nooma qadar inaan qabanno oo waxay sheegi lahayd ama waalidii lahayd dhahdo ama madax furasho ay dhihi lahayd ilaahay nooma qadar inaan gabadhii aan koolka ka qabanno laakiin waan dhibanahay oo waxaan ahay dad masiibo ku dhacday dad waxa dumar laga dilay waa gabdho yar yar oo innocent-ana laga dilay hooyadood dadka waa la gogoysay xun baa loo galay dad hada dambi gal oo maanta aan ku hubno ama shaqaysto ama ganacsad ahaan ma aha gabadha waa arday tan kale waa yar tahay marka dad dhiban waa nahay gabadha ay hadlays markay bixayso mid yar waa la heli karaa maanta macluumaadku fudud yahay ma fahamtay gabadha yarta markay bixayso habarta raadinay way hadlayeen gabdhaha waana la qaatay haddana CCTV uu sheegaya aan dhibanaan u nahay oo gabdhaha sida loo galay waxa bin aadam fiirsan kara ma ahan gabdhahan waa la isla qaato isku meel baa laga wada qaaday kuwa yar yarna xiriirka gabadhaas un bay ku baxeen oo habartooda ay raadinayeen ama hooyada ay raadinayeen ala la dhahaa ma ka ismaaciil la dhahaa xalim ismaaciil aan qornay xalim ismaaciil noo sheeg xaalka hadda intuu maraya todoba saacadan aniga xalay waxaan ka soo galay Nairobi Mombasa ka imaada saakay 12 saac aan soo galay markaan imaada Nairobi soo galay markaan imaadana waxaan u soo mooday meeshan ay gabdhaha midkood yaalaan gabdhaha mid weyn oo tan joogto maxaa la dhahaa waxa lagu sheegay majaaka soonan laga makeen midkood la soo wadaa la leeyahay labada gabdhood oo kale inta yaalaan waxa dadana loo qabtay oo information ama cusubna ma hayno marka ilaa gabdhaha ilaa aan riboodnay oo riboodkooda ilaa habeenkii telefoonadooda iyo wararkooda aan bixinay iyo ilaa hadeertan wax in hawa yaraatee aan ku qanacno ama hatta wax yar hatta telefoonka gabadha shalay uu shaqeynay u furnaa maxaa la dhahaa oo qolada way shiteen dib u shiteen wax ilaahay unta hada information oo wax yar hatta ha ahaatee daliilaadna waxba hadana lama sheegin lama tusin wali wariyaasha afka maxaa la dhahaa sooxiliga ku hadla Englishkana waxay naga dalbayaan in information dheeraan anaga bixino anaga wax qaflada nagu dhacday gabdhahana waa la afduubtay hooyadood baa marka hore la afduubtay ayaga yaraana waa laga daba qaaday waana la wada dilay wax information anaga aan heli karno CCTV-gaas iyo telefoonadii isku xiriirayeen oo macnaha ka badan ma hayno anaga anaga dareenkeena dad waxa masiibo ku dhacday muslim baan nahay horta awalan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaan buu nageliyay oo dad waxaan nahay muslim ah qadarkana waan rumaysanahay oo dad maanta qadarkii macnaha ka boodsan manihin aad baa dhibanaan nahay dad badan oo maxaa la dhahaa macluumaad fara badan waan bixinay inta tabarteena ah maantana hadda dadka markay connection ku jiraan oo ay telefoonada maxaa la dhahaa maanta la dhageysan marka wallaahi dad horta ilaahay wuxuu noo qadaray waan ku qanacsanahay qadarka ilaahay oo kama boodsanin oo wuxuu ilaahay noo qoro waaye laakiin in waxna loo qabto oo maxaa la dhahaa dadka madaxda Soomaalida oo Kenya maxaa la dhahaa maanta ugu magacaaban MPda ha ahaatay iyo xildhibaanada inay wax noo qabtaan ay naga qanliyaan arintan aad iyo aad ayaan u jeclaan lahayn wallaahi laakiin qadarka ilaahay iyo wuxuu ilaahay noo qadaray wax kun sano naga weyn wixii kun sano naga weyn hadda wax marna wax baaqalnaha ma aha ma fahanteen
marka anaga waraysi aan bixinan macluumaad ma hayno dad qalfad ku dhacdaana waxaan wax qalfad ku dhacay marka walaalayaal hadda wax noo qabanaysaan wixii in laga run sheegaa fiican dadkana hadda dad waxaan shaqadooda ay tahayna way jirtaa oo maxaa la dhahaa wixii tabaraaci kara waxaan maanta sida hore ma wax walba wax banaanka yaalo waay ma fahanteen way fududaatay sida hore waago dad gacmo dad telefoon ku wada xiriiray oo gaari wato ma aha dad maxaa la dhahaa hatta aan haysanin wax maxaa la dhahaa xiriir ah ayaaba la soo qabtaa dad wada hadlaayo oo kaamira ku socdo sii baxayo ilaa xilligan in waxna laga siin waayo maxaa la dhahaa warbixin ah aad bay nasiib darro noogu tahay wallaahi aad laakiin haddana waa iska samraynaa ma fahanteen marka insha Allah intaas wax ka badan ma hayo haddana waxna la qabto ma jiro ku jira wali waqtigan ugu socdaa aniga hadda Mombasa aan ka imaaday oo inta deegaan u malihi oo ma sii joogin marka waqtigan hadda wali waxa waaye wixii ku jiraan ilaa darashada la keenay maantay waxa macnaha wax la qaban karo shaqo la qaban karo oo saaka la qaban karo ilaa hadda naloo qabanin wali macluumaadku wuu dhiman yahay leeyahay anaga meesha iska gabranahay marka waxaan jeclaan lahaa in waxna loo qabto oo si islaamnimo waxna loo qabto dad muslim baan nahay iyo dadka shaqadan macnaha u xil saaran in naloo hadlo oo wixii waajib idinka laftiin idin yaalo waaye ma fahantay dad Soomaali dibka uu nabad haystaa in kastoo aniga ugu dhaco maanta aan dhihi karin maxaa la dhahaa meesha aniga xanuunka aan dareemayo ila dareemayo 180 aan dhihi karin haddana magaci waan wada nahay dad walaal baan nahay dad muslim baan nahay marka waxaan jeclaanahay gabdhahaas iyo kuwa kale oo aniga kale iska warbixinayo kuwa kalma xanuunka meel kasta waa ka jira kale waxaan aaminsan wixii hor ani qof asaagayga ama Soomaali oo lagu qaban waayo in maanta aan helay nasiib ilaahay inaan ku helo iyo xaq ilaahay ii soo saar ma ogi laakiin hortaydan waa la dhibanaa gadaashaydan waa la dhibanaan doonaa haddana dhibku taagan yahay marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa in arintan hadda aad joogtiin meesha fadhiin maxaa sugaysiin hadda waxaan sugaynaa gabadhii oo nala leeyahay majaakos laga soo kaxayna gabadhi weyneed oo halka meedkeeda ay geeyeen haddana waa wax maamureer xabad meel baa lagu tuuray ma fahantay taasna hatta waxay sheegaysaa in waqtiga intii macluumaadka la raadinayo oo waqtiga dib u sii dhacayo laana marka anaga information kooda ama aan qorayn report kooda hadii la raadin lahaa gabdhaha waxa la dhihi lahayd inay wax nolol loogu tago dib baa loo dhigay waqtigi 24 saacadood kadib baa la yiri baan liiso jawaab kara ama arintiina la gali kara wixii caajil ama warkii cusub hadda oo degdeg ah waxa marka laga maqan haddana isla hadda wali waxaan ugu socdo wixii uu sii dib dhacay marka dambeys waxaad jaanas siinaysaan marka tuugadii shal casarka telefoonka furato magaalada wala joogto ayaa dib jaanas u siinaysan ee waqti isku baangayso ay meel ay ku baxsato ama wadan kale ay aad ay hesho wixii fiican intuu cusub yahay wixii wax laga qaban karo laakiin waxa loo saxsaxdo oo annagii dhibana su'aal naloo soo noqdo nala dhaho maxaad haysiin maxaa qabtiin annagana idinka sugayna wax noo qabatiin idinkana anaga dib noogu soo noqonaysiin wixii idinka sugayna anaga dib noo weydiinaysaan marka anaga war ma hayno hal su'aal baan qabaa gabdhaha dambeeyeen oo gaariga raacayeen iyaga ma dalbadeen mise ma tagnaa